بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة ودن سلام كدب وحروا إنا صاير دول مروح hawshan maanta qaybteedii hore ay soo gabagabowday qaybtii hore ayaa soo gabagabowday waxayna soo bilaabatay hadda lagu jiray hawshaas muddo bil ku dhowdhow bilsha ma 6 cisho ka dhiman mise 7 cisho ayaa hawshan socotay waxay lahayd shirar hore waxay lahayd safaro waxay lahayd wacyigelin waxay lahayd tashiyo dhinacyo badan ah oo cid walba leh isma leh odayaal leh aqoon-yahan leh dhalinyaro leh haween leh siyaasiyiin leh saraakiil ciidan leh tashigaasi wuxuu soo socdo waxa la isla gartay in labada gobol oo Sanaag iyo Highland iyo galbeedka bari laga sameeyo laba gudi labada gudi kadibna ay kulmaan iyagu marka la iskuna dhafo kadibna iyagu marka ay halka ka maqaadan hawsha wajiga hore marka labadii gudi way kulmeen waxayna ku kulmeen degmada Xingalool waxayna kulmeen maanta oo taariikhdu tahay 30 Soomaa maalin sabti ah labada gudi markay kulmeen hal gudi bay noqdeen koos waxay u socdeen hadafkooda hal mid waa kaliya hal gudi markay noqdeen waxa loo sameeyay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xog hayn falanqayn kadib waxay la fagureen oo ay dhex galeen in loo baahan yahay wada tashi waana la isla qaatay wada tashi loo baahan yahay kadibna waxay isla qaateen oo qorsheeyeen inay sameeyaan gudi hoosaad maadaama gudidani ay tahay gudi 34 qof ka kooban isla markaana aan isla wada heli karin markasta inay sameeyaan marka gudi hoose oo la yiraahdo gudiga qaban qaabada shirka ay ka tashiga gobolada aan soo sheegnay ama gudida fulinta waa la oran karaa gudidaas oo ka kooban 15 xubnood 15 ka xubnood oo la rabo hadii Allah uu diray ogolaado wii gudihii inay wada tashi ugu tagaan ismadii iyo waxgaradka waxaan laga maarmayn kadibna ay iclaamiyaan shir loo dhan yahay taladiisa sida lagu iclaamiyo shirkaana marka ay mandaqadan isugu timaado kadibna ay kaga tashato aayaheeda wixii marka ay dan moodana ay go'aansato marka shirkani saasoo ahaa muddadaasuna soo socday waxaana moodaa hadda insha Allah inay ka bixi doonto gacantii siyaasiyiinta iyo tii aqoon-yahanku waa ku jiraya laakiin oo ay gashay gacan dadkii ay ka tashiga lahaa ah oo gudida loo magacaabay iyaduna ay noqon doonto gudida samayn doonta ajendaha shirka 1 meesha lagu qabanayo 2 muddada la qabanayo 3 iyo tashiga ay la tashanayaan isimada oo isagu ugu horeeya oo ah shaqada koowaad oo ay qaban doonaan si marka isimada iyagu ay ugu wada dhawaaqaan ama isimada ay u siiyaan mandate-ka inay ku dhawaaqaan shirka iyagu waqtigiisa inta waxa dheer waxaan sugaynaa iyagana oo iman doona hadii Allah uu diray ogolaado oo dib nooga dhacay oo ay ahayd in gudidan labadan gudi lagu dhafo gudda saddexaad oo nooga iman lahayd qurba joogta ama dadka mandaqada tan u dhashay ee ku nool adduunka daafihiisa kala duwan waliyaasna waan soo socdaan waan sugaynaa insha Allah xilliga ay yimaadaan baana iyagana ay noqon doontaa shaqada dhinacooda ka gali doonaan waa gudi la soo qorsheynayo waa gudi ciid walba leh odayaal leh aqoon-yahan leh maxay ahaydeen dadka saameynta ku lahaana ah siyaasiyiin leh marka iyagana waan sugaynaa waxaan halkan laftigoodana aan ugu baaqaynaa inay waqtiga ka horeeyo ay arintaas soo toobshayaan noona yimaadaan hawshaasi marka wajigeedii koowaad halkaas ayuu ku soo gabagaboobay maanta waxa la sugayaa inay shaqada tan fududeeyaan waa gudida la magacaabay qaybtii labaad baan loo gudbi doonaa oo gudidaas shaqadeeda ay bilaabi doontaa hadii Allah uu diray ogolaado saas bay warbixintu ahayd waxaan kala rabaa laba qodob oo kale inaan ku daro taas waa warbixintii qodobka koowaad aan ku darayaa wuxuu yahay
saada socotaan maalmahan shaqaaqooyin baa waxay ka jireen gobolka Sanaag meelo kamid ah waxaan leenahay dadkaasi waxay ahaayeen dad darisa waxay ahaayeen dad islaama waxay ahaayeen dad walaalo ah waxay ahaayeen dad wada yaala oo isku dan iyo isku deegaan labadaba ah isku diin ah daris ah wax walba oo dad yahay ah waxaan ugu baaqaynaa oo aan soo jeedinaynaa in nabadda la ilaaliyo nabad wax ka wanaagsan ma jiraan wixii hore u dhacay way dhaceen wax dambe inaanay dhicinin meelahoodii ay ka noqdaan dagaalka la joojiyo cid kasta oo wax garada ama awood u leh ama wax ka geysan karta arintaas daminteeda colaadaasna waxaanu ka codsanaynaa inay waxay ka qaban karto ka qabato hadii Allah wadari ogolaado arintaasna waxaan leenahay waramada wax ka wanaagsan ma jiraan nabadaan la shano isku dambeeynahay isku dagaan beeynahay isku diin beeynahay wax badan baa ina ka dhaxaya waxa la isku hayaana hadda wax weyn oo culus ma aha waa manfac iyo waxa la gurguranayo bariyahan dambe la sheegay marka dhulkuna waa balaaran yahay arinta waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo waxaan ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad nabadgelyo arintaana intaas ayaan kaga gudbayaa qodobka saddexaad aan gudbayaa wuxuu yahay waxa jiray odayaal ka hadlay gobolka bari oo dadkii waliba gobolka bari macquulka ahaa ama laga ka kicin jiray ama maxay ahaydna dadka hor joogay ama odayaasha oo ahaa ay ka muuqdeen klibka aan waan daawaday waxay ka hadlayeen dan uun bay ahayd daliil way ku jirtay waana la daliil karaa dawlad waa la daliil karaa shacabka dastuurku wuxuu qorayaa awoodda ugu sarreysa alla weyne ka sokow waa shacabka Puntland dastuurka awoodda siinaya dadka iyaga shaqada loo hayaa iyaga loo dhaartay iyaga magaca la sito iyaga leh laantood magacna lama yeelan karo dawladda lama ahaan karo aburina xaq umare dadku waxbay daliili karaan waxbay toosin karaan waxbay wixii jiray sheegi karaan waxbay diidi karaan waxbay yeeli karaan waxaan rabnaa dadka odayaashaas marka koowaad shalayna hadalkoodii wax ku jirta taageero ay u muujiyeen gobolada tan oo soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa waxaan sidoo kale cambaaraynaynaa xarigii iyo falka xumaa ee lagu la kacay odayaasha waxaan leenahay dadka saasi ma dhaqdo wixii hore oo dawladdu iyo ceebihi hadda ay geysatay ayaan baceediyay isaga imano kuwaasaan bala dhamayn karan 5 sano soo socotee waxaan dambe oo ay faraha kula sii jirto waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso waana cambaaraynaynaa falka xun ee caburinta ee cid walba hadasho waa la xirayaa iyo waa la jibinayaa iyo waa la dilayaa dawladna lagu ahaan maayo waxna ku socon maayaan saalaashiga arinta waan cambaaraynaynaa waxaan ku baaqaynaa in la sii daayo odayaasha ayaan iyadana ku baaqaynaa hadalkayga intaas aan ku soo koobayaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh